السلام عليكم يا خيارتا kusoo dhawaada mar labaad waa GN Trades sida title-ka arkaysiina tani waxa weeyaan waa sidii saddex cisho gudaheeda ku sameeyay 4.5k isbuucan gabina Telegram-kan soo dhigdhigayay haddaad wada aragtiin saddexdan trades ma trade cusub ama waa exactly the same one aanu ka hadlanay كان هذا أركتيد previous week high باي على قاطي in form of SMT market كوا هوس بو يربح حي دبو صنعدي retest بو سميه وفيل جروبي هوس بو داعي shift in market structure fair value gap يرونسية right after that معرضي كحاجنا سيدو كلا باي سايد كيو على مصنطعي وقاعدتي opening range gap ونقدر تجي form of fair value gap وقالي all the way to the sell side كده reverse بسميه كان نصيده كلا sell side shift in market structure fair value gap entry targets كنا the next buy side so important step وطن مركز أن شيء very simple badan kana dhowr jeer baad heli kartaa weegi at least 3 times oo heli kartaa mark the nearest cleanest high or low waan sameynay baadina waa inaad sugtid 8:30 ilaa 11 tani waa time frame ka window-ga dad badan oo weydiinayaan markaas waxay leeyihiin waa time frame ka tahay markaan ku trade gareynayo session gudaheed 9:30 to 11 ama to 12 ama 8:30 to 11 ma waxaad u maleysaa markaan trade qaadanayo 4 hours base gareysan jawaabtu waa no macnaheedu waxa weeyaan waa setup-kaygu waa either waa 5 minute 1 minute 2 minute 3 minutes waxay doontaa ahaato laakiin waa time frame yar kadibna waxaad sugaysaa inaad labada side ee aad calaamsatay inaad mid la qaato ama buy side ama sell side labadaba waa isku keen mid xaggaas aad ku sugaysid reaction inuu ku tusiyo oo market structure shift inuu ku siiyo isagoo ka tagaya maxay fair value gap haddana dib baan u yara galayaa tii Friday-ga iyo sababtan taa u galay tii Friday-gu sidan oo kale ahayd buy side-ka calaamsaneed uu qaatay hoos buu dhacay fair value gap kaga tagay meesha maxay shift in market structure-ku ka dhacay oo xaggan ah swing low marka la jabiyay from this high to this swing low gudihiisa maxaa ku dhex jiray fair value gap oo entry-gani ahaa target-kuna uu noqon karay xaggan ama xaggan waatan haddana xaggan ay tahay chartkii Friday-ga xaggan aad arkaysiina waxa weeyaan waa 8:30 candle-kan hoostiisa oo opening range gap-kii waa xaggan hoos buu furay kor buu cararay so opening range gap-kaas waa muhiim in ay isku haysiin so market-ku uu cararay wuxuu create gareeyay high haddana high kale uu create gareeyay hoos buu dhacay wuxuu isku dayay inuu mar labaad qaato highgan soo qaatay oo uu fail gareeyay bacdaad aragteed market-ka kale ay wadaagaan tana course ku imaan doonaa oo closely correlated market-ka ay tahay minigu highgan uu qaatay xaggan markuu marayay highgan uu qaatay isagoo oo SMT weeyaan waana waxaan u qaadanayaa market-kan inuu highga jabiyay haddana hoos u dhacay oo xaggana muxuu markaana noo sameeyay what's this a fair value gap after 9:30 after 8:30 after highgan iyo highgan u qaatay waa kan ES exactly xaggan markuu marayay muxuu sameeyay highgan muuna qaadan highgan muuna qaadan fair value gap nuu sameeyay entry-gina waa ka oo target-ka waxa ku markan kale noqon karay waa lowgan ama lowgayaashan iyo intii ka hooseysay aad rabtay inaad haysato but almuhim waxa weeyaan setup-kan waa keeps repeating 3 times at least a week at the time frame-ka sii yaraysid way kasii badanaysaa intaasaan ku eekeynaya anigo GN Trades una salaamatiin